بسم الله الرحمن الرحيم وبشي أغسطس maalintii tobnaad 2022 waa fadxii iyo channelkii aqoon wadaag iyo isku soo noqod kale. maanta waxaan ka hadli doonaa waxyaabahaan aad u daneeyo waxa weeyaan suuqa adduunka, marketka hadday stock noqoto iyo hadday crypto noqoto. stockga saa uma fiicni, cryptogana rajun baa ka qabna, anigoo shakhsiyan ka qaba. marka waxaan ka hadli doonaa dhowr shay: inflationkii, sixir bararka maraykanka. markuu maraykanku dee siduu sixir bararku yahay unbuu yurubtuna noqonaysaa badanka, wayse saameeyaan. hoos buu u dhacay, inkastuu aad u badan yahay laakiin hoos buu dhacay, halkii laga rajeynay hoos buu uga dhacay. waxaan ka hadli doonaa ingiriiska, dhibaatada nagu soo socota inay korontadu aad u qaaliyoodo. crypto baan ka hadli doonaa, suuqiyo maanta aad u kacsan. saaxiibaday Somali sport oo yaamahan iska seexday waan ka hadli doonaa. waxaan taaban doonaa horaan uga hadlay muxuu ahaa CJ, maxay la oran jiray CJ app, CJ online. horaan uga hadlo dee Soomaalidu ma waantoobayso, haddana waa kan waxaa meelo kala badan lagu dhacaya, taana waan ka hadli. lacagtu siday u qiimo dhacday ogaa baan ka hadli. intaasaan ku koobay insha allah barnaamijka maanta. haddaan ku horeeyo inflationka, waxa weeyaan sixir bararka. wax kastaba wuu qaaliyoobay sanadkan. waxaana ugu wacnaa suuqyada adduunka iyo maraykanka iyo dadkan lacagaha sameeya, baananka daabaca, inuu aad wax kastaba goobaabsi u yihiin. waxaa badan dadkii wax iibsanayay yaa ka badan supply-gii wixii la iibsanayay, marka wax kastaba way qaaliyoobayeen. sida taa hoos loogu dhigo interest rateska, ribada iyay maraykanka iyo yurubtuba aad bilahan dambe u kordhinayeen. interest rateka af carabina waxay meelaha ribo ku yidhaahdaan, dulsaar. tiisaa awooday inay sixir bararkii uu bishii hore soo yaraado. marka bishii hore siday u dhacday yaa imika bishan la cilaamiya, marka hoos bay u dhacday. waxay ka dhigan tahay suuqii uu stable buu soo noqonayaa, rajadii bay soo noqonaysaa. waxay dhici karta inay dib u dhacdo, laakiin hadda siday tahay rajadaasaa ugu fiican. dadka wax gadanaya sida crypto iyo stockganana way u fiican tahay, lacagtooda u korodhaa dhici karta. waxaan kaloo isdul saarayaa annaka ingiriiska, markuu imika jilaalku qabowuhu soo bilaabmo, guryaha badankooda 300 iyo xoogaa bay bixin doonaan averageka. dad baa 400 bixin doona bil kastaba inay guriga kulaystaan iyo wax cunto ku karsanaa, wixii energy. marka waa dhibaato weyn soo socota. dowladdu meelaha bar bay ka caawin doontaa, laakiin taana waa wax nagu soo socda. suuqa inflationkii oo hoos u dhacay, cryptogii markii ugu dambeysay aan crypto ka wada hadalno oo channelkan kaga hadlo, waxaan u maleeyaa bitcoin wuxuu 40,000 iyo sare u dhaafsasana. waxay had dhowr biloodtid waadiga arkaya, dhowr biloodoo 3 bilood haddaan ku koobo, 3 bilood soo baxo waka 45 buu joogay April. qofkii 1,000 haystay wuxuu khasaaray 500. marka dadkii waktigana ka hadli jiray iibsaday, lacagtoodii nus bay khasaartay. dadkii sanad ku sii jiray way khasaarayin iyaguna. dadkii ka badnaadu sanadka
ee gatay wixii ka horreysay 2020kii iyagoo faa'iiday ku jiraan. Waxay rajeynayaan in dib loo soo noqdo. kuwa halkan iibsadana haddayna dib u iibin, dadka 40 iyo waxa ku iibsaday haddayna inay iska gadin oo inay iibin, waxay rajeynayaan in dib loo soo noqdo. waa rajo undi rajo ku nool, hadduu doonto hoos buu dhici doonaa, laakiin cryptoguna waa suuq adduunka ka jira. crypto markaan ku leenahay Soomaaliyay, CoinGecko amba coin market cap, labada side gala. kuwan aad ka haragtiin boqolka ugu sarreeya kuwa wax ka iibsada, markaa suuqa adduunaha la tartamaysin. laakiin arrimahan kale ee Soomaalida ku kooban ee dadka amba ajaanib ku kooban lagu dhacayo, lacag lagama helo, waa lagu khasaaraa. xogaaga yaree aan soo shaqayno amba cayr lagu siiyo ha iska khasaaranina. 100 goor baa la digayaa, ma jirto lacag bilaash iyo socod iyo hees lagu helo. markaa waan ka digaynaa. cryptogu haddaan usoo noqono, maanta aad buu kacsan yahay. labadii bilood marka aduu meelaha bishii dhaweyd dadkii iibsaday bitcoin faa'iiday ku qabaan. mar buu hoos u dhacayo ilaa iyo 18,000 uu gaadhay. maanta wuxuu joogaa 24 waxay ka dhigan tahay qofkii hal doona iibsado 24 buu bixini oo dollar. laakiin qofkii dhibic hal iibsanaya 2,000 buu bixini. qofkii iibsanaya dhibic hal bitcoinana wuxuu bixinayaa 240 gini. markaa kii awoodaya dee waa inuu 200 iyo 100kaasi gato, siduu rajo bal u eego inuu 3 sano 4 sano dabadeed inaad qofku faa'iido. especially bitcoin 4 sanaba waa la adkayaa lacagta. marka 2024 yaa la adkeyn doonaa. rajaduna waxa weyn inay intan kasii badnaato. marka qofkii samir leh ha ku nasiibsado, way dhici kartaa. gooraha la iibsado bitcoin iyo stock waxa weyn waa marka dadku ka rajo beelaan. waxyaabaha lagu gartana waxa weyn dadka twitterka la socda, twitterka ha eegaan sida dadku uga rajo beeleen. aniguna qoladan oo aad markuu cryptogu sanadkii bilowgeeda aad u kacsana halkan aad ugu qaylqaylin jiray, way wada seexdeen. marka rajadii waxaa dhici karta in rajadii hoos u dhacsan tahay, sidaa aawadeeda waqti hagaagsan oo la gato cryptoga. waxaan kaloo iloobi gaadhay inaan ku daro cryptoga la yidhaahdo ka labaad ku jira Ethereum. bishan dhammaadkiisa waxaa laga wareegayaa proof of work. waxa weeyaan kombiyuutarro badan yaa samayn jiray Ethereum-ka. may samayn jirin laakiin ilaalin jiray security-giisa. hadda waxaa loo wareegi doonaa waxa la yidhaahdo proof of stake. lacagihii la siinayay minerka dadkan kombiyuutarradooda ku shaqeeyaan Ethereum yaa laga joojinayaa. adduunkana markaa waxaa la rajeynayaa inuu Ethereum imika 1,800 buu joogaa, inuu sare u kaco 2,000, 3,000, 4,000. qofkii dee gata inuu nasiibkiisa rajadu u badan tahay inay kacdo, uu ka faa'iido. ta kalena ku darso, waxaa dhici karta in lagu khasaaro amba waxa la yidhaahdo merge kan la sameynayo proof of work laga guurayo in lagu guuleysan waayo. haddii lagu guuleysan waayana inay hoos u dhici doonto ilaa iyo 500, 300 oo 100 gaari karto, aad lagu khasaari karo. sida iminka bish sanadkanba aad lagu khasaaray cryptoga. taasina ku darsada malihiina. waxaan ugu dambaysiinayaa insha allah lacagta sida adduunaha ay dadkan ugu ciyaarayaan European-kan iyo Mareykanka
iyo adduunyahoo dhanbaba waxaa kuu caddaynaysa boqolkii gini 2008 boqolkii gini wixii kuu goynaya maanta waa inaad 140 aad ku iibsatid. waxa weeyaan qofkii lacag meel dhigtay 10kii sane imisa laga soo wareegaa 12 sano 14 sano laga soo wareegay. qofkii lacag meel dhigtay 40 gini boqolkiiba 40 gini yaa laga dhacay ay ka dhigan tahay oo lacagtiisii hoos ahaan u dhacday. wuxuu boqol ku iibsanayay waqtigaasi hadda waxaa laga rabaa 140. micnaheeduna waxa weeyaan inay 40 ilaa iyo 40% 40 boqolkiiba 40 lacagtaadii si xirfadeysan lagaga dhacay. marka dadkii lacagaha meel dhigta khasaaray ku jiraan. waxaa faa'iido un dadkii wax la yidhahdo asset amba hanti haysanayay. qof hadduu guri lahaa amba hadduu dukaan lahaa amba meel hadduu lahaa inay lacagtiisii ay faa'iidadiisii amba raasamaalkiisii weli taagan yahay. laakiin qofkii cash amba lacag ahaan pound amba dollar ku haystay waa la khasaaray, waa la dhacay, adduunaha laga dhacay. intaasay ku kooban tahay, hadal badan aan ma buuxiyo. ujeedadu waxa weeyaan soomaaliyay iska daaya beenta, ka daaya waxaana dalgalaysiin jiifo jaq iyo ibil lacag ka soo qada hilibka u geey joojiya. waqtiyada dadku rajo beelaan cryptoguna waa waqtiyada la iibsado bacda 2 sano inaad dib u gadid oo ka faa'iidid ay ku habboon tahay ayaa u badan tahay. intaasaan kusoo koobayaa. waxaan kaloo ku daraya hadduu bisha dambe reedku hoos u dhaco cryptoguna soron buu kici doonaa. intaasay naga eeg tahay insha allah iyo ismaqal dambe mar dambe.